sidee ayaa looga hortagi karaa gabowga degdega ee bini'aadamka? saynisyahano ka tirsan jaamacadaha waaweyn ee dalka Mareykanka ayaa aaminsan inuu yahay gabowgu cudur isla markaana la daweyn karo. waayo-nimadu waa mid dhab ah oo qof waliba lama huraan ku ah, waana halka qof waliba u dambeyn doono haddii uu nool yahay. balse waa hidde-side sida uu aaminsan yahay saynisyahanka David Sinclair oo ah saynisyahan ku caanbaxay arrimaha baarista hidde-sidaha bini'aadamka. sida laga soo xigtay daraasad la sameeyay ka badan 20 sano ayaa waxaa lagu sheegay in suuragal tahay in laga hortagi karo duqnimada degdega ah iyadoona lagu salaynayo dhowr arrimood oo ah in qofka caafimaadkiisa muddo dheer loo sugo. saynisyahanka ayaa waxa uu rumaysan yahay in dhowaan ay suuragal tahay in meesha laga saaro gabowga iyadoona la isticmaalayo dawooyin kuwaas oo weli tijaabada ku jira isla markaana laga yaabo inay awood u yeeshaan inay gebi ahaanba baabi'iyaan gabowga. saynisyahanka oo ah dhakhtar ka tirsan jaamacadda Australia iyo Machadka Tiknoolajiyadda Massachusetts ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka shaqeeyaa shaybaarka jaamacadda Harvard halkaas oo ku baarayo sababta keentay in dadku ay si degdeg ah u duqoobaan. waxaa loo doortay inuu ka mid noqdo 100 qof ee ugu saameynta badan adduunka sida lagu qoray majalada Times. saynisyahanadu waxay ogaadeen in 9 sababood ay suuragal u tahay gabowga. cilmi baaris socotay 25 sano ayaa waxa ay muujinaysaa labadan qodob oo kala in qofku uu gabowga degdega uu ka helo hidde-sidihiisa ama waalidiintiisa ama in qofka caafimaadkiisu aad u wanaagsanayn kuna xiran tahay sida hidde-sidihiisa ayuu ku sheegay ninkani warbixin uu soo saaray. cilmi baarayaasha ayaa rumaysan inay jimicsiga oo si habsami leh loo sameeyo iyo cunista cuntooyin isku dheelitiran ay gacan ka geysan doonaan sidii loo yareyn lahaa geedi socodka duqnimada. gabowga waxaa sababi kara cudurro badan oo ka mid ah wadna xanuunka, macaanka iyo cudurrada kale. daraasad dhowaan lagu daabacay joornaalka Nature ayaa waxay kor u qaadi doontaa aragtida ah ilbaxnimada qadiimiga. haddaba daawada si aad inoola socotid fadlan like saar sina share garee page-ka Timcadde si asxaabtaada kale kugu xiran warbixintan aad ula wadaagtid.